السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. idilkiin ba kusoo dhawaada barnaamij aanu idinka diyaarinay sida uu dhacay inqilaabkii dalka Turkiga ka dhacay sanadii 2016 15 July habeenimo Jimcaha saacaduna ay ahayd 10 fiidnimo waxaa si toos ah gudaha Turkiga uga bilaabmay isku day inqilaab kaasi oo mar dambe kusoo dhamaaday fashilaad iyo sidoo kale iyadoo kooxihii soo diyaariyay ay kala huleeleen faramarnaan iyo guuldarro halkaasi ka soo gaadhay waxaana taasi ay muujinaysaa in shacabka dalka Turkiga uu ka dhaxeeyo isku duubni iyagoo taageersan nidaamka ka jira dawladda gudaha Turkiga iyo sidoo kale in ay ka soo horjeedaan cid kasta oo isku dayda inay soo farageliso dalka Turkiga gudaha iyo dibadda. Daba barnaamijkani waxaa idinku soo bandhigi doonaa sidii uu dhacay inqilaabkii dalka Turkiga qaybtiisii koowaad. halkani waa bridge-ka loo yaqaan bridge-ka shuhadada kaasi oo ku yaala bartamaha Istanbul waxaana lagu bixiyay kadib markii 10 habeenimo 16 ama 15 bishii July sanadda 2016 ka bilaabmay isku day inqilaab taasi oo ay isku dayeen kooxihii inqilaabkaasi fulinayay inay halkaasi xog ku qabsadaan. ugu horreyntiiba daqiiqadii koowaad waxaa hawshu bilaabantay sida tani waxaa xubnaha sirdoonku ay ku walheleen inuu jiro dhaqdhaqaaq dhinaca askarta taasi oo ka socda saldhigyada gaar ahaan saldhigga cirka isla mar ahaantaasina waxaa halkaasi ka warhelay hoggaanka ciidamada ama taliye ku-xigeenka sirdoonka Mueller waxaa loo sheegay in ay hawshan socoto idlaafida ninka loo yaqaano oo ah taliyaha guud ee sirdoonka waxa ay sameeyeen kulan la isugu yimi kaas oo socday ku dhawaad 30 daqiiqo kadib kulanka waxaa laga soo saaray iyadoo kulanka ay qayb ka ahaayeen hogaamiyaha guutada koowaad iyo sidoo kale hogaamiyaha ciidamada cirka iyo xubno kale oo kamid yihiin booliiska waxaa laga soo saaray go'aanadani. isku dayga inqilaab waxa uu socday muddo ku siman 12 saacadood taasi oo kulankii dheeraa ee socday 30 daqiiqo kadib laga soo saaray go'aano ay kamid yihiin joojinta dhammaan diyaaradaha ka kaca goobaha ama saldhigyada ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Turkiga iyo sidoo kale in la mamnuuco in hubka gaar ahaan hubka culus ee ay kamid yihiin kaarayaasha iyo tawaangidu inay ka baxaan saldhigyada loogu talagalay iyadoo sidoo kale la mamnuucay in xubnaha askarta ama saraakiisha sarsare ay ka baxaan goobihii loogu talagalay waxaana ay taasi u suurta gashay sidii loogu talagalay iyadoo goor dambe ay ka dhagaadeen xubno kamid ah ciidamada cirka. isku day fiican ayaan sameynay waxaan isku daynay inaan dhamaan soo gabagabayno ama aanu amar ku bixin inaan bixin ciidamada cirku iyo ciidamada dhulka toona oo kaarayaasha iyo tawaangidana goobta ka bixin dhab ahaantiina saasi oo inta hore noo fushay hawl la garan kara ma ahin hawsha meesha ka socotay inay inqilaab dhameystiran tahay in la dabari doono go'aanada aan soo saarnay iyo sidoo kale in ay wax u dhici doonaan sidaanu doonayno laakiin ujeedkaygu waxa uu ahaa kaliya inaanu sameeyno nidaamka loola dhaqmo xubnaha isku dayga inqilaabka wada ama marka uu yimaado shaki noocan oo kala. haddaba halkani waxaa imanaya su'aalo la isweydiinayo oo ah maxay tahay sababta loogu wargelin waayay madaxweynaha dalka Turkiga iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii waqtigaasi. dhab ahaantii waxaan u maleynayay ama ismaanaan lahayn waxay u dhacayaan sidan soo socota laakiin waxaan islahayn inqilaabku ama hawshani ma aha hawl saawsi adag waxaan doonayay inaanu anagu dhamayno waanu kala khadjinayna madaxweynaha ku wargelino sida wax u socdaan iyo inuu aanu gudbino in ay wax jiraan laakiin waxaan islahayn idinku soo gabagabeeyay kaliya ma yahay madaxweynaha waxa dhigid naga dhaxaynin dhab ahaantii way jirtay waxa aan doonayn in anagu soo gabagabayno laakiin hawshu way ka adkaatay sidii hore iyaga qudhoodu waxay ku talagaleen inay ku dhawaad 1 ama 4 habeenimo bilaabaan laakiin way u noqon weyday xogaa ay heleen iyo sida khaldan oo loo gudbiyay ay isku dayeen sawir xisaabadan lagu bilaabaan balse ma suurtagelin ugu dambeyntii waanu ka guuleysanay. markay xubnaha sirdoonku ka warheleen isku dayga inqilaab iyo sidoo kale markay ay ogaadeen xubnaha fulinaya inqilaabku in hawshoodii la ogaaday waxa ay dareemeen inay ka hor timid fashilaad iyagoo
ay ka hor yimaadeen laba doorasho oo kale ah in ay kala doortaan inay hawshani joojiyaan oo ay ka noqdaan inqilaabka iyo sidoo kale in ay galaan iyagoo oon diyaar u ahayn isla mar ahaantaasi aanay gaadhin xilligii loogu talagalay oo ahayd 3 habeenimo balse hore loo soo dhigay 6 saacadood taasi oo noqotay 10kii fiidnimo taasina waxa ay keentay inay si degdeg ah u galaan iyadoo ay timi kala daadsanaan isla mar ahaantaasina la isku dayay ugu dambeyntii in la fashiliyo hawshooda taasina waxa ay suurtagelisay inay si fudud u fashilanto hawshoodii ahayd inay fuliyaan inqilaab ay ku qabsadaan dalka taasoo xilka lagaga qaadayay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan dhanka kale madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa uu qaadanayay xilligaasi fasaxiisi sanad la ahaa kaasi oo ku qaadanayay magaalada xeebta ku taala ee Marmaris taasi oo xilligaasi ku sugnaa hoteelkaasi ku yaala dhabaantii waxaanu ahayn saacad markay ahayd ilaa 8 meelahaas 9kii waxaa naga fadhinaa kulan qoysas kale oo caadiya ayaa igu soo dhacay telefonkii dhanka qoyska waxaan la sheegay in uu dalka ka socdo dhaqdhaqaaq aan la garanin waxa loo yahay kadibna waxaan go'aansaday marka hore inaan ku wargelinin laakiin markii dambe waxa dhacay telefoon fara badan bay soo gaadhay oo sheegay in xaaladdu caadi ahayn wax khatar ah ay soo socdaan aniga iyo madaxweynuhu waxaan u wareegnay qol kale si aan uga wada hadalno arrinta socota oo aan u garaacno telefoon fara badan oo xogta u raadino kadib waxa isku dayeen xubnaha inay soo galaan gudaha halka laga maamulo ciidamada militariga taliyaha ciidanka militariga Akar General Akar ayaa waxay ku qabteen qori iyadoo la socdo mid ka mid ah xogayaashiisii hore oo Turkaan loo yaqaano kaasi oo wada xubno kale xataa waxay dileen mid ka mid ah xubnihii ciidamada dhanka dhulka ama infantryga loo yaqaano oo ahaa guardka ilaalinayay generalka waxaanay ku qabteen qori iyagoo leh waxaan doonaynaa in la shaqeyso xukunkana gacanta ku hayna hadii ay sarqaajisana waxaan ku dili doonaa kadib generalku waxa uu ku celiyay waxa wadan wuxuu yahay waxa ay ugu jawaabeen sidii inaan nolol shaqeysan u baahanahay waxa uu isna ugu jawaabay sameeyay waxaad sameynaysaan waxaad ku socotaan dambi aad u weyn waxaanad khiyaamo ka galisaan dalkiina waxa uu mid ka mid ah ku yiri intuu qoriga kor u qaaday hays dhaqaajina digal waxaan kugu furayaa rasaas laakiin ku kale ayaa ku yiri waxa ku furan doorasho inaad la hadasho hogaamiyahayga Fatxullah Golan oo aad kula hadasho telefoonka si uu ku qanciyo isla mar ahaantaasina ku siiyo xog faahfaahsan oo ku qancinayo sida aad nooga qayb noqon lahayd hawshani aan dalka kula wareegayno ciidanka ku dhawaad 40% saraakiisha sarsare ama generaalada ciidanku waxay xubnaha ka qayb qaadanayeen inqilaabka laakiin awoodka badan ayaa ka hortimi markay isku dayeen bridge-ka loo yaqaano Misfar ama bridge-ka shuhadada inay gaaraan oo ku yaala bartamaha Istanbul waxay la kulmeen awood aad u xoog badan waana iska caabin kari waayeen ugu dambeyn madaxweynuhu wuxuu sameeyay telefoonkiisa uu xiray markuu helay telefoon muhiim ah oo la hadlay kadibna uu weysiistay markii uu iska bedelay wuxuu tukaday salaatu safar waxaana ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim ka hor intii aan la dejinin qaabkii aan u bixi lahayn iyo dhaqdhaqaaqa aan sameyn lahayn iyo sidii aan u dabiri lahayn inaan ku badin nolosheeda dhabaantii waxa jiray xubno
lagu di waxaad la wareegaysan marka xukunka aan la wareegno meelaha saarada siinaya waxaan xasuustaa inuu mid ka mid ah xubnaha uga shaqeynayay oo ka mid ah xubnaha ammaanka Istanbul degmooyinkeeda mid ka mid ah oo aan arkay isagoo xidhnayn dharkii askarta oo tiifule mid ka mid ah kaarayaashii ay wateen xubnaha taageersan Golan ama fulniin inqilaabka waxaana uu ii sheegay inuu iska wareejiyay hogaankii amniga ee uu ahaa degmadaasi isagoo sheegay in loogu ballan qaaday marka uu inqilaabku guuleysto in booster laga siiyo dawladda dhalan doonta marka haddii inqilaabku uu guuleysto kadib aan tireer baan ahayn waxaan kornay mid ka mid ah baabuurtii goobta yaalay si aan u hor istaagna kaarayaasha doonayna gudaha u galaan kadib saldhigga ciidamada cirka ee ku dhow magaalada Istanbul waxa ka soo kacay laba helikabtar oo saaran yihiin ku dhawaad 20 askari oo ka mid ah ciidamada badda ee ka dagaalama badda dusheeda taasi oo ay ku sii jeeday isla marhaantaasina ay ku sii jeedeen labadaasi helikabtar magaalada Istanbul iyada oo ciidamada ay ka soo kaceen lagu magacaabo ciidamada SAC waxa sidoo kale iyaguna soo dabagalay laba helikabtar oo kale oo ka soo kacay ciidamada MAC loo yaqaano kuwaasi oo kuwa ka dagaalama dhabarka cadawga ama dhabar jabinta isku daya